kulan looga hadlayay xaaladda ammaanka galbeedka Wajeer oo maalmahan dhowr qofood lagu dilay dhanka Booji ee xigta galbeedka ismaamulka Wajeer ayaa maanta lagu qabtay magaalada Wajeer kaasoo ay ka soo qayb galeen laamaha amniga xildhibaanka galbeedka Wajeer gudoomiye xaafadeedyada deegaanka galbeedka Wajeer iyo waxgaradka ka soo kala jeeda deegaanka galbeedka Wajeer kadib markii kulankaasi uu soo idlaaday ayaa waxa saxaafadda la hadleen xildhibaanka galbeedka ismaamulka Wajeer Yuusuf Maxamed Faarax iyo gudoomiyaha ammaanka ismaamulka Wajeer xildhibaan Yuusuf ayaana bulshada ugu baaqay inay nabadda ku dadaalaan oo ayna dajiyaan xiisadda. bismillaah maanta halkan waxaan iskugu imaadnay arrintii falka xun oo ka dhacday Wajeer West oo 3 qof ay ku dhinteen. horta tan horeysa inaan tacsiyo u dira cid kasta oo laga dhintay inaad sabar iyo imaan Ilaahay siiya. kadib maanta waxaan kulanay county security teamki iyo chiefafti iyo Wajeer West oo dhan odayaashii oday dhaqameedkii iyo dhalinyaradii culimadii waxaan ka hadlaynay ama aan rabnaa aan ka hadalnay arrimaha hadda ka dhacay oo foolka xun oo Wajeer West ah sidii lagu damin lahaa arinta ay hore ugu sii soconin dadkii falka xun geystayna loo qaban lahaa oo sharciga loo marin lahaa. taa kadib waxaan go'aansanay aniga iyo teamka security iyo odayaasha inay mar damba dil dambaas dhicin oo hadda dilka intaas isku ekaado dadka lala hadla la qaraabada labada dhinacba ay raali ahaadaan wixii dhacay qabiil ma ahayn arrin qabiil ku saabsan ma ahayn dad isdigaalay oo dhul isku digaalay ahaayeen haddana tii way dhacday wax laga qaban kara ma leh dadka dhintina lama soo celin kara wixii kale oo nool intaas u baa ka badan. marka waxaan ku tashanay ku go'aansanay intii dadkii dhintay tacsiyo loo geeyo odayaal loo bixiyo dhaqankii la mari jiray Soomaalinimo la mara dadka dilina la xiro oo sharciga la mariyo qof qabiil u ahaadaba ha ahaada 3 qof oo kale ahaa dishay 3 la soo xira sharciga dawladda Kenya la mariyo qofkii dambe oo qof dilina saas amar sharciga la mariyo. waxa kaloo la isku afgartay in xiisada hadda socota la dejiyo oo xiisadan laga dhigin laba qabiil oo isdigaashay oo in noqoto dad oo ayaga isku gafay dhulkii ay kaayna xalkeeda odayaasha u joogo waxa u jooga sharciga la mari lahaa sidii ma aragtay dawladda sharcigeeda la mariyo qofkii qaldan qaladkiisa la tuso kii saxsanna garab loo noqdo. I want to gudoomiyaha ammaanka ayaa dhankiisa sheegay in khilaafaadka beelaha walaalaha ee xilligan ku diriraya galbeedka Wajeer uu salka ku hayo arrimo dhul taasoo uu sheegay in qoys walba uu rabo in uu yeesho deegaan hor leh. Leo tumekuwa na mkutano na mheshimiwa wa eneo la ubunge la Wajeer West Mheshimiwa Yusuf, na ni kwa sababu ya tofauti ambazo zimeweza kuonekana katika jamii ambazo zinaishi katika eneo hili la ubunge, na hasa ilikuwa jana marafiki wawili ambao walikuwa wanachoma makaa wakakosana na mmoja wao akapiga yule mwingine na kumuua. Kwa bahati mbaya ikaonekana ni kama jamii fulani imedhulumu jamii fulani, na ikakuwa sasa inaweza kuleta kutoelewana katika baina ya hawa jamii wawili. Lakini nashukuru mheshimiwa ameweza kufika leo kutoka eneo lake la kazi Bugeni huko Nairobi, na tumeweza kuketi na wazee, tumeketi na kamati ya usalama, tumeketi na pia machief na assistant chiefs, na tumekubaliana ya kwamba lazima tuweke binu ya kuhakikisha kwamba amani imerudi katika eneo hili. Binu ile tunachukua saa hii, machief na wazee wanaenda kwa vijiji kutuliza watu, lakini pia lazima tuweke binu za kuhakikisha kwamba linalosababisha watu kukosana ni nini. Tumeangazia mambo ya ardhi. Kuna watu wanaenda wanajikatia ardhi, mtu anaweka azizi kama eka 5 hivi, na hili ni ardhi ya jamii. Lakini sasa ukiweka zizi inamaanisha kwamba raia wengine ama wananchi wa area ile hawawezi wakatumia ile ardhi labda kulisha mifugo na kila kitu.
Kwa hivyo mambo ya ardhi mnajua sheria sana sana iko katika county government. Tutawasiliana na governor na county assembly tuone vile tunaweza kuwa na bylaws ambazo zitakuwa zinashughulikia jambo hili, ndio watu wasije wakatoweza kuelewana. Lakini pia tumezungumzia mambo ya new settlements. New settlements zinaletwa na mashirika ambayo sio ya serikali, kwa sababu saa zingine wakati wanatoa msaada wanategemea vijiji. Sasa watu wanaona tukiuda kijiji yetu tutakuwa tunapata msaada kubwa kutoka kwa shirika ama ma-NGOs. So langu kama county commissioner nitaita mkutano ya ma-NGOs wote ambayo wanafanya kazi katika kaunti ya Wajir, na lazima tukubaliane ile mikakati ambayo watakuwa wanafuata kabla ya kusajili settlement mpya, ndio tuweze kuwa na amani katika kaunti yetu. Asanteni. si kastaba ha noqotee bulshada degto galbeedka ismaamulka Wajir ayaa loogu baaqay in xilligan aysan muhiim ahayn in dirir ay halkaasi ka qabsoonto ama lagu si kastaba ha noqotee bulshada galbeedka Wajir ayaa loogu baaqay in amniga xoojiyaan aysan xilligan muhiim ahayn in dad walaalaha ay isku dilaan arrimo la xiriira dhul.